السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan akhyaarta ku xidhan channelkeena. Maanta barnaamijkeena waxaanu ku soo qaadan doonaa taariikhda magaalada Istanbul. Waxaanu kaga warrami doonaa duruufihii iyo dhibaatooyinkii ay soo martay magaalada Istanbul xilligii la furtay iyo qodobo kale oo fara badan. Inala daawo ilaa dhamaadka. Istanbul waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu qadiimsan caalamka, taas oo asaaskeedii hore la sheegay in la aasaasay 610 sano ka hor taariikhda miilaadiga, waxaana caasimad xilligaasi u ahayd dowladda Roomaaniya. Waxaa magaalada loo bixiyay magacyo kala duwan oo ka mid yihiin Qusطنطينية iyo magacyo kale oo fara badan. Nabi Maxamed ayaa xusay, isagoo asxaabi ka mid asxaabtiisa uu weydiiyey, yamaan horfuran doonaa Qusطنطينية oo haatan ah Istanbul, iyo Roomaaniya oo hadda ah caasimadda Rooma. Nebigu waxa uu ugu jawaabay, waxaad horfuran doontaan Qusطنطينية. Magaaladan waxay muslimiintu furteen sanadku markuu ahaa 1453, waqtigaas oo dowladda Cusmaaniyiintu ahayd kuwa ka taliya dalalka Islaamka, waxaana hogaaminayay Maxamedkii labaad oo loo bixiyay markuu magaalada Istanbul furtay Maxamed al-Fatix. Maxamed al-Fatix waxa uu magaca magaalada u bedelay Islaambul, taas oo macnaheedu yahay magaalada Islaamka. Laakiin xukuumaddii diin la dagaalanka ahayd ee Ataturk ayaa amar ku soo rogtay sanadkii 1930 in magaca magaaladu uu noqdo Istanbul, isla markaana laga wareejiyo caasimadda waddanka, waxaana laga dhigay magaalada Ankara. Magaaladani waa mid laba qaaradood ku kala taal, iyadoo qayb ku taal qaaradda Aasiya, qayb kalena ay ku taal Yurub, waxaana u dhexeeya biyo-mareenka loo yaqaan Bosphorus. Masaaxada ay ku fadhido magaalada Istanbul waa 1830 kiiloomitir oo iskuweer, waxaana lagu qiyaasaa dadka ku nool 15 milyan iyo badh. Duruufo badan oo taariikheed ayay soo martay magaaladani dabayaaqadii qarnigii tegay, waxaana gaadhay xaalad adag, taas oo qaybo badan oo magaalada ka mid ah ay ku dhaceen biyo la'aan. Dadweynaha reer Istanbul ayaa xilligaasi biyaha guryahooda shirkamaha ka soo dhaansan jiray meel aad u fog. Biyo-mareenka Bosphorus ayaa isaguna noqday qashin-qubka magaalada, kaas oo fayadhowr xumo u keenay dadkii deganaa magaalada. Taasi waxa u dheeraa in dowladda hoose Istanbul lagu lahaa deyn dhan 2 bilyan. Ma u malaynaysaa daawade in magaalada xaaladani gaadhay ay hagaagayso? La soco qaybta dambe oo aynu ka hadli doono sidii magaalada Istanbul uga baxday xaaladii adkaa. Haba like, subscribe-na ha ilaawin, wixii fikrana komentigaaga. Waanaad ku mahadsantahay daawashadaada. Sidaa iyo isku soo noqod dambe oo xiiso leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.